Ma dhabbaa daawade in Sayid Cali Macalin Daa'uud uu ku dhex xanuunsanayo xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho? Maxaase ku dhacay? Muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa xilli maalmaha soo socda tiirka toogashada la geyn doono. Laakiin intaan u guda gelin, muuqaalka like saara, sii sheer garay oo la wadaag saaxiibada, boggaanna follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran. Mahadsanida. Aynu ku bilownay wararka ka imaanaya gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in Sayid Cali Macalin Daa'uud uu halkaasi ku xanuunsanayo, isla markaana cudurro kala duwan oo kula dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho uu la xanuunsanayo Sayid Cali Macalin Daa'uud. Wararka ayaana sheegaya in xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato, isla markaana weli uusan helin gargaar caafimaad oo isbitaal ah. Waxa ayna wararku ay sheegayaan in gudaha xabsiga dhexe daawooyin yaryar oo kaalmaati ah lagu siinayo Sayid Cali Macalin Daa'uud, iyadoo wararkuna ay tilmaamayaan in xaaladiisa ay aad u daran tahay, isla markaana ay xaaladiisa ka dheerinayaan saaxiibada kula xiran xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo inoo xaqiijiyay in xaaladda Sayid Cali Macalin Daa'uud ay si aad u liidato, isla markaana loo baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay geyso isbitaalada magaalada Muqdisho, khaasatan kuwa dowladda, haddii aanan loo awoodin in la geeyo isbitaal gaar loo leeyahay, sida ay tilmaameen qaar ka mid ah maxaabiista oo warbaahinta la hadlay, isla markaana si hoose uga soo duxiyay xogaha sheegaya xanuunka Sayid Cali Macalin Daa'uud. Waxa ay sidoo kaleeto wararku ay sheegayaan in Sayid Cali Macalin Daa'uud xanuunkiisa uu kala duwan yahay, isla markaana dhowr xanuun oo isugu jira malaariyo iyo sidoo kaleeto xanuuno kaleeto oo gaas iyo waxyaabo kaleeto isugu darsan uu la daalaadhacayo, iyadoo uu si aada u ilgo-ay, sida ay tilmaamayaan wararka aynu ka helayna xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Sayid Cali Macalin Daa'uud ayaa waxa uu u xiran yahay kiiska allaha u naxariistay Luul Cabdulcasiis Maxamed, taa oo uu nafta dhaafiyey xilli uu ku gubay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho sanadkii 2024. Muddo sanad iyo barkad badanna waxa uu ku jiraa xabsiga dhexe ee dalka, iyadoo uu yahay xukun suge kadib markii maxkamadaha kala gedisan ee dalka ay ku xukumeen Sayid Cali Macalin Daa'uud dil toogasho. Waxa ayna sidoo kaleeto xoguhu ay tilmaamayaan in laga cabsi qabo in Sayid Cali Macalin Daa'uud uu xabsiga ku dhex geeriyoodo haddii aysan dowladda federaalka Soomaaliya tallaabooyin lagu horumarinayo caafimaadka Sayid Cali Macalin Daa'uud aysan qaadin. Maxkamadda gobolka Banaadir, maxkamadda racfaanka iyo sidoo kale maxkamadda sare ee dalka ayaa dhammaantoodba Sayid Cali Macalin Daa'uud ku xukumay xukun dil toogasho ah, taasi oo ka dhalatay qisaasta allaha u naxariistay marxuumad Luul Cabdulcasiis Maxamed oo uu nafta dhaafiyey eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud oo hadda ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in la filayo maalmaha soo aadan in tiirka toogashada uu ka soo muuqdo Sayid Cali Macalin Daa'uud, iyadoona la dedejinayo toogashada Sayid Cali maadaama shacabka ay ka dhowr sugayaan kiiska Sayid Cali Macalin Daa'uud. Hadalhayno kala gedisan ayuuna baraha bulshada ka dhaliyey tan iyo markii la xukumay Sayid Cali, sababta ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay u toogan la'dahay, isla markaana uu ugu jiro weli xabsiga dhexe, iyadoo marxuumadii uu nafta dhaafiyey muddo sanad ka badan ay sugaysa cadaaladda. Qoyska Luul Cabdulcasiis ayaana sheegay in ilaa iyo hadda ay ka dhowr sugayaan laamaha cadaaladda dalka iyo xilliga la tooganayo Sayid Cali Macalin Daa'uud. Horay qoyska Luul Cabdulcasiis ayaa u sheegay in aysan dooneynin in ay aasaan marxuumadda maadaama ay iyadu
ay doonayso in lala aaso Sayd Cali Macalin Daa'uud laakiin maxkamadaha dalka ayaa ka codsaday xilligaasi in qoyska ay aasaan marxuumadda si loo helo cadaalad isla markaana marxuumadda kiiskeeda loo sii dardar geliyo laamaha cadaaladda dalka ee garsoorka ayaana ku guuleystay in ay dil toogasho ay ku xukumaan Sayd Cali Macalin Daa'uud kadib cadayno kala duwan oo laga helay iyo qiraalo uu isagu sameeyay waxa ayna taasi horseeday in gebi ahaanba maxkamadaha dalka ay dil toogasho isku raacaan hadda waxa ay wararku ay sheegayaan in qoyska Sayd Cali Macalin Daa'uud ay doonayaan in waawaan ay ku xaliyaan xaaladda iyadoo tiro dhowr jeer lacago kumanaan doolar iyo sidoo kale lacago kor u dhaafaya ilaa iyo 3 milyan oo doolarka Mareykanka ay sheegeen inay ku bixinayaan sidii ay ugu badbaadin lahaayeen tiirka toogashada Sayd Cali Macalin Daa'uud laakiin qoyska Luul Cabdilcasiis ayaa wacad ku maray inaysan qaadan doonin wax magac isla markaana tiirka toogashada la geyn doono Sayd Cali Macalin Daa'uud aabaha dhalay Luul ayaana sheegay waa aabba Cabdicasiis in gabadhiisa cadaaladeeda ay ku heli karto oo kaliya in tiirka toogashada uu tago Sayd Cali Macalin Daa'uud daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada boggaana follow soo mahadsanida.